iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay Soomaalida ku nool daafaha dunida oo dhan ay sameynayeen munaasabado ay ku muujinayeen maalinta 1 Luulyo ayaa Soomaalida ku nool wadanka Netherland waxa ay sameeyeen xaflad ay ku muujinayaan munaasabada maalinta 1 Luulyo haddaba xaflad si heer sare loo soo agaasimay oo ay soo qaban qaabiyeen xubnaha jaaliyada Soomaalida ee ku nool magaalada Eindhoven ee koonfurta wadanka Netherland oo lagu xuseeyay maalinta 1 Luulyo ayaa lagu qabtay dhawaan magaaladaasi xafladan oo ay ka soo qayb galeen waxgarad iyo aqoon-yahano ku kala nool dhammaan gobolada dalka Netherland ayaa xubnihii ka hadlay waxa ka mid ahaa Maxamed Mursal Shiil oo ah madaxa hay'adda daryeelka beeraha xoolaha iyo horumarinta qowmiyadda Soomaaliyeed horeyna u soo ahaa dawladii dhexe ee Soomaaliya wasiir ku xigeenka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dhiigan iyo dhibkan taagan ee maalin walba taagan hal la joojiyo wayna dhibaysaa markaanu telefishinka Universal daawano habeen walba hooyo Soomaaliyeed ooyaysa oday cad oo Soomaali ah oo meesha ooyahayo oo cudurradu qabay ay u dheeriyeen gaajo iyo silac iyo baraka iyo halaqa gurigiisa hadduu dhibaataysnaa geeri uu ku sugayay laakiin dhibaato kale muusan qabin hadda wax walba oo xun baa la arkaa waxaanu idinka codsanaynaa inaad dagaalkaas soo afjartaan carruurta qurbaha ku dhalatay ee ku kortay dareenka ay ka qabaan marka Soomaaliya la yidhaahdo waxaa weeye meel dhib dil dhaawac xubno la googooyo curyaamin iyo dareen xun uu ka jiro awal waxaa la dhihi jiray culummada ayaa wax bedeli doonta halgan iyo howl dheer baa la soo galay Itoobiya baana qabsaday baa la yiri shacabkii baa istaagay Itoobiya way baxday wadankii way ka baxday inay maanta kuwii culummada sheeganayay labada dhinacba ma dawladda noqdaa ama shacabka noqdee waa iyagii dadkii ay tusaan dareen ah haddii culummadii sidan tahay maxaa la filayaa sidoo kale waxa iyana ka hadashay xafladaasi Aamina Aadan oo kamid ah xubnaha Soomaalida ee ugu firfircoon wadanka Netherland isla markaasna soo abaabushay munaasabadan xorriyadda ummadda Soomaaliyeed oo aan ka qaadanay Talyaaniga iyo Ingiriiska waa maalinkii israaca ummadda waqooyi iyo koonfur marka waxay ku beegnayd 1 Luulyo laakiin ma dabaaldegi karin waayo waxay ku soo aaday maalin iskuuleed oo way walba yaabo mashquulaha marka maanta ayaan dabaaldegaynaa waxaan rajaynaynaa inaan xusuusan doono inaan ka nimid wadan aan halkan ahayn in loo soo maray wadankeena dagaalo badan dhiig badan ay ku daateen laakiin dadkayga maanta aysan taas dareensanayn waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwii istaba qabta oo ummadooda jid wanaagsan ku hagan dhanka kale waxa iyana xafladan khudbado ka soo jeediyay mas'uuliyiin ka socotay dawladda wadanka Netherland oo ay ka mid ahaayeen General Hani van der Graaf oo ka tirsan xukuumadda cusub ee Soomaaliya la taliyay dhinaca ammaankan u ah Ra'iisul Wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke isla markaana hore la taliyay dhinaca ammaanka ugu soo noqday Ra'iisul Wasaareyaashii hore ee Soomaaliya u soo maray ee dawladihii Professor Cali Maxamed Geedi iyo Nuur Cadde De voornaamste reden is dat ik 3 jaar geleden door de toenmalige prime minister Ghani werd gevraagd of ik zijn speciale adviseur zou willen worden op het gebied van veiligheidsaangelegenheden. Ik heb hem toen een paar maal ontmoet om te kijken hoe een en ander zou kunnen worden aangepakt. Ik heb toen in 2006 geassisteerd bij het opstellen van een veiligheidsplan. Maar door de inval van de Ethiopiërs. waxa iyana ka hadashay xafladan Yaase Kharafisma oo ah xiriiriyaha Soomaalida ee dawladda hoose ee magaalada Eindhoven oo ku taala koonfurta wadanka Netherland. Toch is iets dat Nederlandse en Somalische mensen met elkaar verbindt. En dat is de droom van vrijheid en onafhankelijkheid. De droom om je kinderen een goede toekomst te geven en ze op te laten groeien tot gelukkige en respectabele mensen. De droom om voor jezelf te zorgen en trots te kunnen zijn op wat je bereikt hebt in je leven. markii ay soo gabagabowday xafladan
ayaa qaar ka tirsan xubnihii Soomaalida ee ka soo qayb galay xafladan ay u sheegeen Universal TV sida ay u arkaan dareenkooda ku aadan maalinta 1 Luulyo. Hello, I am José Graafsma. I work for the city of Eindhoven and I work together with the Somalian people. And today I share this wonderful celebration of the Independence Day and I really loved it. I'm very impressed by this evening and I must say I've made a lot of new friends and in particular Mohammed Shield, thank you very much that you invited me. We all know how difficult the situation in Somalia is and I sincerely hope that it will go for the best because we and you cannot go on the way it's going on now. So we hope that a solution can be found to come to a more peaceful Somalia. Thank you. mahad ilaahay baale xafladatan maanta lagu qabtay magaalada Eindhoven oo ku saabsan xornimada sanad guurada Soomaaliya ee ka soo wareegatay 49 sano aad baan ugu mahadinayaa dadka organizer gareeyay ay ku jiraan istikhtinkaas Soomaali's Gemeenschap iyo Agda iyo gabdhihii soo organizer gareeyay Ismahan iyo Aamina aad bay ugu mahadsan yihiin dadka kale waxa farxad weyn ah in la arko in caruur Soomaaliyeed haween Soomaaliyeed oo fursad isku helay inay yimaadaan oo xafladii meeshii ku xusaan oo iyadana arrin weyn ah oo iyaga laftooda xornimo u helay waxyaabo badan marka iyo waqti badan isku helaan marka waa mahadsantiin dadkiina Universal TV oo iyagana qaybta lixaad la ka qaatay oo suurtagal ka dhigay arrintan in ay wax ka geystaan waa mahadsantiin waxaan mahad u celinayaa Universal TV xafladan naga soo qayb gashay oo 1 Luulyo sidaan xamar ugu sameey jirnay ka daran inaan ugu sameeyna aan jecelnahay nasiib daro ilaa maanta bisha 3 waaye 3 Luulyo waaye 1 Luulyo waqtiga noo saamac waayay inaan ka dhigno 1 Luulyo ilaa maanta 3 bil Luulyo ayaa inta ku sameeynayna tii oo Soomaali ku sameey jirnay iyo haddana ilaahay waxaan ka toonaa tan dambe inaan ka fiicnaan doono sanadkii koowaad aan sameeyno waa in doon ku sameeynay waxaan rajaynaynaa sanadaha dambe inaan ka sii fiicnaadaan mar labaadna waxaan u celinaa dadka soo qayb galay kulligood iyo dadka soo abaabulay qaas ahaan telefishinka Universal asaga naga soo qayb galay waxay ahayd munaasabad aad u qiimo badan kulankan maanta meesha ka dhacay mid xasuus la oo lagu xasuusanayo maalinkii xorriyadda maalinkii midnimada ummadda Soomaaliyeed isla mar ahaantaana waxay ahayd munaasabad baaq loogu jeedinayo ummadda Soomaaliyeed baaq nabadeed oo laga jeedinayay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Eindhoven ay u gudbinayeen dadka ku dagaalamaya Soomaaliya iyagoo ka codsanayay garbaha dagaalamaya inay dagaalka ummadda dan uma hay ka joojiyaan ayuu ahaa marka kulankan mid khayr qabo ahaa ilaahayna ummadda waxaan uga baryaynaa guul iyo nabad qab iyo qulubtooda inuu ilaahay soo hagaajiyo sidaan halka ku wada joogno kale inuu ilaahay iyagana ka dhigo kuwa is wada jecel waxba dhib isu qabin baa ilaahay uga rajaynaynaa halkan waxaan isugu nimid caaway 1 Luulyo xuskii xorriyaddii jamhuuriyadda Soomaaliyeed saadarteed dareenkayga ma soo koobi karo waxaan u rajaynayaa shacabweynaha Soomaaliya markasta ku nool yihiin inay nagula ciidaan arrintan oo kale garabyada Soomaaliya isku haysta waxaan iyagana ka codsanaynaa oo ka rajaynaynaa annagoo shacbigii iyo dadkii diaspora ahaa ee ku noolaa dalka dibaddiisa inay dhageystaan fadlan heshiiya dad walaalanahay isku afa isku diina isku dhaqan isku mid ah halkan waxa marxatiga aan ku hayaa dhalinyarada yaryarayd maanta waxaan u dabaaldegaynaa 1 July anagoo ah reer Eindhoven magaalada Holland waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dadkan oo dhan inay meesha imaadaan u dabaaldegaa wadankooda ilaahay waxaan ka baryaynaa dhibkii iyo dhibaatada inuu naga qaado guud ahaan Soomaalida ku nool wadanka Netherland ayaa waxa ay ku qabteen magaalooyin kala gedisan xaflado ay ku muujinayeen munaasabada 1 Luulyo iyadoo magaalooyinka Utrecht iyo kuwa kaleba lagu qabtay dhawaan xaflado lagu muujinayay munaasabada maalinta 1 Luulyo. Maxamed Abuukar Sheekh Xasan Maxamedeed Universal TV magaalada Eindhoven ee koonfurta wadanka Netherland.